wasiirka wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay weheliyaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse xildhibaano ka kala socday guurtida iyo baarlamaanka guddiga gacanta ku haysa dhismaha wadada isku xidha Hargeysa iyo Salaxley iyo maamulka degmada Salaxley ayaa xariga ka jaray dhamaystirka 5 kiiloomitir ay xukuumaddu ugu tala gashay dhismaha wadada isku xidha Hargeysa iyo Salaxley. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuulillah. waxaan halkan maanta xariga ka jaray 5 kiiloomitir dawladdu ay dhigtay waxaan dhagax dhigaynaa insha Allah ta'ala 5 kiiloomitir oo kale oo loo hore aan ugu ballan qaadnay iyo 10 kiiloomitir ay deegaanku iska soo ururiyeen 15 kiiloomitir. dhinaca kalena waxa uu wasiirku isla maanta dhagax dhigay dhismaha 15 kiiloomitir oo ay xukuumaddu bixin doonto 5 kiiloomitir halka 10 kalena ay bixin doonaan bulshada deegaanku. wasiirka wasaaradda madaxtooyada oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in dhismaha wadooyinku ay faa'iido weyn ugu fadhiyaan dalka iyo bulshadaba isagoo intaas raaciyay in xukuumaddu ay garab taagan tahay cid kasta oo wax qabsanaysa. salaan kadibna aad baan runtii ugu faraxsanahay wadada tan iyo siday u socoto iyo guddiga gacanta ku haysa oo dadaal badan iyo juhdi badan gelisay waxa muuqata imka in 20 kiiloomitir ama wax ka badan imka la marayo waxaanu dawlad ahaan marar badan ku celcelinay dadka yani sida ay u dadaalaan baan anaguna ula dadaalayna dadaalka aad dadaasheen wax qabateen halka marinaysan imka wadadii kala bar ku dhowdahay ayaan anaguna dadaalayna sidii maalintii hore aan sheegay 5 kiiloomitir hore waa naga xadhiga ka jaray 5 dambana insha Allah ta'ala waa dhagax dhigno haddaanu bilaabaynaa 10 kiiloomitir dadka deegaanka iska soo ururiyay 10 kiiloomitir insha Allah ta'ala waa iyadana waa la bilaabaya hadii alla ka dhigo waana wadayna insha Allah ta'ala joojin mayno hadii alla ka dhigo waxaan u rajaynayaa insha Allah ta'ala inay ku guuleystaan dhammaan dadka qurbaha joogay iyo dadka gudaha joogay dadka awoodaba waxaan leeyahay halaga qayb qaato wadooyinka waa shay khayriya waa shay sadaqatul jaariya ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay saabiqu ila maghfiratin wa jannati arduha as-samawati wal ard u tartama wanaaga ilaahi subhanahu wa ta'ala isagoo jannada u tartama marka wanaaga u tartama oo waa wax wanaagsan oo sadaqal jaariya idin noqon doonte u tartama aad iyo aad baa u mahadsantiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo halkaasi ka hadlay ayaa bulshada kula dardaarmay ka qayb qaadashada dhismaha wadooyinka dalka loona jeesto dhinaca horumarka. wadda waa inoo dhex oo waa wadada Ceerigaabo wadooyinka kalena waa nin iyo itaalkii iyo wixii lagu caawin karo. waxaan leenahay maantana deegaankii war mar labaad soo jeesta oo indhaweyd hakad bayna yara gale gaar ahaan qoladiina qurbaa hakad bayna yara gale waxba marka la idin yimaado uun ha dhageysanin oo shirar iyo qabanine marka la maqan yahay waxa soo dirtaan baa macaan. wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxa farxad weyn maanta inoo ah in maal wasiir madaxtooyada inay la joogo iyo wasiiradii kaleba oo aynu dhagax dhigayno 15 kiiloomitir oo dambe 5 dawladdu ay sameynayso hadii ilaahay ka dhigay insha Allah iyo 10 beesho ay sameynayso 15 ka marka la isku daro wadadu waxay gaaraysaa hadii ilaahay ka dhigo qol caday waxa waa banki ilaahay haydin ka aqbalo ilaahay dambigiina kiiwaantii ma dhaafo in wax qabadka dawladda iyo wax qabadka dadku marka tashadaan wax qabsadaan ceeb maaha imika labada wado isku muuqdaan haddana waynu kala sameynayna waa wax qabadka dadka ficilka caynkaasi ma xuma marka anaga loogu soo duceeya shantii horaan naga dhamaanayay ilaahay inta dambana inuu noo fudadiyo aamin dah idinkana Allah inii sakhiro Allah inii sakhiro ilaahay khayrkiisa ayuu sub aamin dalkana mid khayr qaba Allah inoo dhigo khayraadkiisa ku jirana ilaahay kii nagu gargaaray inaynu la soo baxno Allah inooga yeelo xirkana madar khayr qaba.